waxyaabaha diidayo inaan ku dhaqanno dastuurka. Caqabada ugu weyn aniga aan aaminsanahay waxay tahay in qofkii aqoonyahanka iyo qofkii suuqa jooga oo isku mid dastuurka fahansan yahay oo aanay jirin wax wacyigelin oo dadka aan la fariisin oo TV-yada ama media aan dadka barnaamijyo loogu sameynin oo dadka aan loo tagin oo la fahansanin macnaha dastuurka oo yahay oo qofkii dastuurka ku maqlo dastuurka ku Ilaahay keenuu kule ka carrabku ku qabo qof wax kala wado marka in dadka loo dhawaado oo loo dhaweeyo dastuur wuxuu yahay la fahansiyo rightska iyo xuquuqda oo dastuurka uu ilaalinayo la tuso waxyaabaha noocaas dadka in loo sharxo rabaa dastuurka. caqabadahan hortaagan waxaa ka mid ah anaga Soomaali ahaan inta badan mostly ma fahansanin dastuurka anaga Soomaali haddana dastuurka ma diidanin laakiin dastuurka waxa qaadanaysa markii aad ogaato waxa uu yahay aniga maanta halkan taagan 2011 iyo wixii ka horeeyay dastuur oo yahay dastuur haddii aan maqlo dastuur oo yahay maanta laakiin faa'iidooyin badan inay ku jiraan aaminsanahay oo nolosha ku dabaqan caqabadaha horta waxa kamid ah dadkii Soomaaliyeed ma yaqaanaan dastuurka. caqabadaha hadda jira runtii waxa ugu horeeya horta caqabadani iyo waxa jira caqabada faham darrada dastuurka jirta waayo muddo 30 sano ah waxa ku nooleen wadan iska burbursan ninka awood leh oo qorsita uu maamusho laakiin dastuurka maxaa la caqabadahaas iyo ninka awood lahaa ma ogolaanay maanta daayiraad heshiino waayo awoodiisu ku tashanaya qof nabad iyo maxaa la yiraahdaa nolosha diyaar waa maaha sidaas darteed barasho la'aantii iyo maxaa la yiraahdaa jaahil noqoshada aan ka jaahil noqonay dastuurku waxa uu yahay wax dastuur loola jeedo aan keentay macna inaan ku dhaqmo weyno caqabad badan oo balaaran sida degmooyin qaarkood aan xoreysanin arrimo political iyo isheeg dastuurka dadka aan fahansanin in dadka la wacyigelin la fahansiyo runtii inaad dastuur ku dhaqanno caqabadaha jira dabcan caqabado way jiraan caqabadaha jirana waxa ugu weyn runtii dalkan wuxuu galay dagaal sokeeye markii hore waxaan ahayn wadan dawlad dhexe oo awood badan leh systemka dawladnimadeenu isbedelo badan baa ku soo dhacay isbedeladii badan iyo dastuurada oo xataa wax laga bedelay oo dastuuro badan wadanka uu soo yeeshay ilaa dastuurka 60kii iyo kan maanta oo ugu dambeeyay ilaa waxaan filayaa 4 ilaa 5 dastuur oo kala duwan baa dalku yeeshay marka caqabadaha keenaya dalku dadku inay dastuurka lagu dhaqmi waayo ama caqabada adag ay ka hor yimaadaan waxaa kamid ah nidaamka cusub ee federaalka hor la qaatay oo aan aqoon u lahayn wali oo bulshadu ay baranayso waxaa kamid ah dalkii inuu yahay dal dagaal ka soo baxay oo dadkii bulshadii kalsoonidoodii aysan aad u dhisnayn oo ay gobollo xoogaa dadku ay u kala u qaybsan yihiin caqabado badan baa kamid ah dadkii horta aan fahansanayn dastuur muxuu yahay dastuurkii oo aan dhamaystirnayn baa kamid ah oo weli aan si sax ah aan referendum ama afti loogu qaadin baa kamid ah waxa kamid ah bulshada qayb kamid ah oo aan aaminsanayn oo dhahayaan yani aniga waxaan aaminsanahay dastuurkeena quraanka waaye dastuurkan dhaqankaala meel kale laga keenay fikradahaas oo dhan waxa ay saamaxayaan ama ay keenayaan ku dhaqmida dastuurka iyo fahan la'aanta dastuurka taas baa u sababa caqabado badan ayaa taagan oo in ku dhaqanno oo ka hor imaanayo aduu waxaadan lahayn qofku wuxuusan asugu lahayn marmarka qaar waxay keenaysaa inuusan ku dhaqmin markaan anaga hadda Soomaaliya markaad fiiriso dastuur waa noo yaalaa midna waa lahaan jirnay hadda kan noo yaalo ummadda inta badan waad dareemi kartaa contradictory ku yahay waxa la aaminsan yahay ummadda inuu kor ugu imaaday oo daaqadan la gelinayo ummadda uu ka soo galay waayo haddaan waxaan degsanay oo ummaddu ay biiskiisa leedahay uu yahay ku dhaqmi lahayn asiga naftigiisa markuu wuxuu u baahan yahay ummadda naftigeeda in lagu celiyo si ummaddu ay uga jawaab bixiso oo jawaabta right iska saxda loo helo